Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo daafaha caalamka ka joogtaan. Kusoo dhawaada barnaamijkeennii qisooyinka. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Siciid Cali Maxamed Turki. Waxayna barnaamijkeena kusoo qaadan doonaa qiso ka mid ah qisooyinka ka dhacay adduunka. Qisadaasi oo inooga warramay Nabiyullaahi Maxamed calayhi salaatu wassalaam, oo markaasi uu ku caddeeyey axaadiista saxiixa sida laga wariyey nabiga calayhi salaatu wassalaam, naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. waxa uu yidhi, 3 nin oo ka mid a ummadihii hore ee reer banu Israa'iil ayaa waxa uu Ilaahay doonay inuu imtixaamo, isla markaasina uu mariyo mid ka mid a imtixaanada adduunka ee markaasi uu Ilaahay, maadaama uu adduunyada u abuuray gebi ahaanteedaba in la isku imtixaamo isla markaasina la isku abaalmariyo. 3 nin mid ka midi waxa uu ahaa nin qabay xanuunka loo yaqaano baraska, mid ka midina waxa uu ahaa nin markaasi madaxiisa aanay ku oolin wax tima ah, ka kalena waxa uu ahaa nin markaasi isaguna indhala. 3 nin ayaa waxa uu markaasi sida uu nebigu naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee uu inoo sheegay, waxa uu markaasi Ilaahay ayaa waxa uu doonay inuu 3 nin uu imtixaamo. Dabadeetana waxaa loo soo diray malagii ayaa waxa uu yimi markii loo soo diray 3daas nin ayaa waxa uu malagii u yimi ninkii ugu horreeyay ee baraska qabay. Kadib waxa uu ku yidhi, maxaad jeclaan lahayd wax Ilaahay ku siiyo? Kadib waxa uu yidhi, waxaan jeclaan lahaa inuu Ilaahay iga qaado baraskan, isla markaasina ay ii soo noqdaan jidhkaygii oo markaasi xanuunkan dadku ay igu qudhunsadeen ay igu dhibsanayaan uu iga tago. Dabadeetana malagii ayaa gacanta saa u mariyey. Dabadeetana waxaa ka tegey xanuunkii baraska ahaa ee markaasi ninkaasi uu la ildarnaa. Kadib waxa uu ku yidhi, maxaad jeclaan lahayd xoolo uu Ilaahay ku siiyo? Kadib waxa uu yidhi, waxaan jeclaan lahaa inuu Ilaahay uu i siiyo geel. Dabadeetana markaasi malagii ayaa waxa uu siiyey hal markaasi dhalaysa. Deedna markaa waxa uu ku yidhi, hashaasi Ilaahay ha kuu barakeeyo. Kadib dabadeetana waxa uu u tegey ninkii isaguna markaas bidaarta lahaa ee aqraca ahaa ee madaxiisa dhammaantood aan wax timaahi aanay ku oolin. Kadib waxa uu ku yidhi, wax Ilaahay ku siiyo maxaad ugu jeceshahay? Kadib waxa uu ku yidhi, waxaan jecelahay inuu Ilaahay uu madaxayga uu timihiisii uu ii soo celiyo, isla markaasina aan helo oo madaxan bilaa timaha uu Ilaahay uu iga qaado oo aan markaasi timo wanaagsan aan helo. Kadib dabadeetana madaxii ayuu gacanta saa malagii u mariyey. Dabadeetana markaasi Ilaahay ayaa timihiisii u soo celiyey. Kadib waxa uu ku yidhi, xoolo Ilaahay ku siiyo maxaad ugu jeceshahay? Kadib waxa uu yidhi, waxaan jecelahay in markaasi la i siiyo lo. Kadib waxa uu siiyey sac dhalaya. waxaanu ku yidhi, sacaasi Ilaahay ha kuu barakeeyo. Kadib sidaa markii ay xaaladdu ay ahayd ayaa dabadeedna waxa uu ka tegey malagii, waxaana uu tegey ninkii indhaha la'aa. waxa uu ku yidhi, wax Ilaahay ku siiyo maxaad ugu jeceshahay? Kadib waxa uu yidhi, waxaan ugu jecelahay inuu Ilaahay uu indhahayga nuurkoodii uu ii soo celiyo oo aan markaasi dadka si fiican u arko. Dabadeetana markaasi indhaha ayuu sidaa kadib dabadeetana indhaha ayuu saa gacantii ugu masaxay. Dabadeetana markaasi waxaa u soo noqday indhihiisii oo Ilaahay ayaa indhihiisii u soo celiyey. Kadib waxa uu ku yidhi, xoolo lagu siiyo maxaad ugu jeceshahay? Kadib waxa uu yidhi, waxaan ugu jecelahay adhi in la siiyo. Dabadeedna markaasi waxaa la siiyey neef markaasi dhalaya. Dabadeetana isaguna sidaas ayuu indhihiisiina uu ku helay, xoolana uu Ilaahay ku siiyey. Haddaba 3dii ninba mid walba xanuunkii hayay iyo dhibaatadii uu la ildarnaa Ilaahay wuu ka kor qaaday, isla markaasina waxa uu siiyey maal fara badan. Nin walbana waxa uu haystaa geel aad u fara badan, midna waxa uu haystaa lo badan, midna adhi badan ayuu haystaa oo Ilaahay uu siiyey. Dabadeedna adduunyadu inay imtixaan tahay qisadan ayaa kuu muujinaysa, oo Ilaahay uu adduunyada uu dadka uu markaasi imtixaamayo, isla markaasina uu eegayo bal dadku sida ay bal adduunyada ay ka yeelaan, iyo qofka marka uu Ilaahay uu nicmo uu siiyo bal inuu nicmadii uu ku mahadnaqo iyo inuu uu ka kufriyo ayaa la kala eegayaa. Marka qisadan
sidaa ayaynu arrimaha aynu kala baxayno ayay ka mid tahay. dabadeetana ninkii malagga ahaa ee uu ilaahay 3 nin uu soo diray ayaa isaguna waxa uu iska soo dhigay markii dambe nin markaasi baras leh oo markaasi xanuunkii ninkaasi uu hore uu qabay oo kala qaba. deedna ninkii baraska lahaa ee ilaahay uu xanuunka uu ka kor qaaday ee uu maalkana siiyey ayuu malaggii u yimi isagoo baras leh oo markaa waxa uu iska soo dhigay malaggii qof bini'aadama. dabadeetana markaa waxa uu ku yidhi ninkii ayuu u yimi waxa uuna ku yidhi waxaan ahay nin xanuunka baraskaasaan leeyahay, maxaan kugu dhahdaayey nin baras leh ayaan ahay, waxa safarna waan ahay, markaasi wixii aan ku safrayeyna way iga kala go'een, markaasi waxaan doonayaa geelan in aad awr aan markaasi aan safarkayga aan ku sii wato aad iga siiso. deetana ninkii ayaa waxa uu ugu jawaabay ilaahay markii hore uu xanuunka ka kor qaaday waxa uu ugu jawaabay war geelan sidan laguma helo, geelana xuquuq badan baa lagu leeyahay. kacab ayaan soo lahaa buu yidhi, ka awow ayaan geelan soo lahaaye sidan laguma helee waddadaada iska sii maro, safarkaaga iska sii wado. dabadeetana waxa uu malaggii ku yidhi waxa ka'annii acrifuka, waxaad moodaaba inaan ku garanayo, alam takun abrasa, miyaanad ahay nin baras lahaa. dabadeetana uu ilaahay uu ka kor qaaday xanuunkii baraska ee hayey. dabeedna markaa waxau yidhi xanuunkani weligeyna igumuu dhicin, xoolahanna maxaan kugu dhahday weligeyba waan haystay buu yidhi. deedna malaggii waxa uu ku yidhi haddii aad been sheegayso ilaahay sidaadii hore ha kugu celiyo. dabadeetana ninkii baraskii ayaa ku soo noqday, geelii iyo xoolihii uu haystayna waa laga qaaday. kaasi halkaasuu ku fashilmay, imtixaankii wuu ku fashilmay. kii kale u tegey ee markaasi isaguna markaa lahaa bidaarta lahaa ee aan madaxiisa wax timaahay aanay ku oolin. kadib dabadeetana markaa waxa uu sidiisii oo kale ayaanu iska soo dhigay. waxa uuna ku yidhi waxaan ahay nin musaafira, waxaan kugu dhahdaayey xoolo aan safarkayga aan ku sii galana ma haysto, waxaan rabaa inaad xoolahan ilaahay uu ku siiyey aad waxaad iga siiso. kadib waxa uu ku yidhi xoolahan sidan laguma helo, sidii ninkii oo kale ayuu ugu jawaabay. dabadeetana isaguna halkaasi ayuu ku fashilmay. dabadeedna waxa uu ku yidhi haddii aad been sheegayso sidaadii hore ilaahay ha kugu celiyo. dabadeetana kiina sidii buu ku noqday. kaasina halkaasi ayaa uu isna uu ku fashilmay. waxa uu u tegey ninkii indhoolaha ahaa ee markaasi isagana markaasi uu indhaha uu ilaahay u saaray, malaggii baa markaa u imanaya ma ogtahay. dabadeedna markaa malaggii oo iska soo dhigay nin indhala ayaa ninkii indhoolaha buu u yimi. kadib waxa uu ku yidhi waxaan ahay nin indhoolaa oo maxaan kugu dhahdaayey safarna waan ahay, safarkii ayaa markaasi iga kala go'ay, xoolihii aan ku safrayey ayaa iga kala go'ay, markaasi waxaan doonayaa in aad xoolahan uu ilaahay ku siiyey aad wax iga siiso. kadib dabadeetana ninkii indhaha la'aa ayaa waxa uu ku yidhi aniguba sidaasoo kale ayaan ahaa, waanan indhala'aa, ilaahay baana maxaan kugu dhahdaa ii soo celiyey indhahaygii, waxa aanan markaasi ilaahay baana ii soo celiyey buu ku yidhi indhahaygii, xoolahaygii waa kuwaase, waxa aad doonayso ka kaxayso, waxa aad doonaysona ka tag, wallaahi kuguma dhibayo buu ku yidhi shay aad ilaahay dartii aad iga kaxaysatay oo aad alle dartii aad iga qaadatay kuguma dhibayo, markaasi waxaad doonayso ka kaxayso, waxaad doonaysona ka tag. malaggii ayaa waxa uu ku yidhi nin yahow xoolahaaga iska hayso, 3 nin baad ahaydeen, 2 nin oo kale ayaa imtixaanka kugula jiray. malaggii ayaa ku yidhi nin yahow xoolahaaga iska hayso, 2 nin oo kale ayaa imtixaanka kugula jiray, 2dii nin ilaahay wuu u cadhooday, adigana ilaahay wuu kaa raali noqday. markaasi malag ayaan ahay baanu ku yidhi, ilaahay baana iikiin soo diray inaan idin imtixaamo oo markaasi laydin mariyo imtixaanka adduunka, markaasi nicmada la idin siiyey la idin eego bal inaad ka mahadnaqdaan iyo inaad ku kufridaan. 2dii nina saaxiibada ahaa imtixaankii way ku dhaceen, ilaahayna wuu u cadhooday, adiguna imtixaankii waad ku baastay buu ku yidhi, ilaahayna wuu kaa raali noqday. markaasi qisadan waxaynu kala baxaynaa adduunyadu inay tahay imtixaan, isla markaasina waxaa loo baahan yahay qofka bini'aadamka ah inuu ka sahay qaato, isla markaasina aanu adduunyada iyo dhaldhalaalkeeda aanu iska daba ridin. waa kii ilaahay qur'aanka ku yidhi wama alxayaatu ddunyaa ilaa lahwun walacib wa ina addaara alaakhirati lahiya alxayawaan low kaanuu yaclamuun. wama alxayaatu ddunyaa adduunyadu may ahaanin ilaa lahwun
waa danseeg walacibun iyo ciyaar waa wax shay ciyaara iyo shay lagu danseego ayuu ilaahay uu ku sifeeyey adduunyada. wa ina daara alaakhirati daarta aakhiro lahiya alxayawaan waa nolosha dhabtaahi waa iyada, low kaanuu yaclamuun haddii dadku ay garanayaan. mar kale ilaahay waxa uu qur-aanka ku yidhi wama alxayaatu dunyaa fi laakhirati ilaa mataac. nolosha adduunyadu marka aakhiro loo eego waxay isaga dhigan yihiin raaxo yar oo mooyaane wax kale iskagama dhigna. mar kale waa ka ilaahay qur-aanka ku yidhi wama alxayaatu dunyaa ilaa mataacu lquruur. nolosha adduunyadu waa raaxo yar oo tegaysa oo dadka dagaysa mooyaane wax kale maaha. barnaamijkeenii qisooyinka intaasi ayaynu kusoo gebagabaynaynaa toddobaadkan. barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Maxamed Siciid Cali Maxamed Turki. waxaanad kala socotaan barta aan YouTube-ka ku leeyahay ee Maxamed Turki Channel. intaaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaasi iyo nabadgelyo.